Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tixanaheennii dariiqa guusha. Qaybteennii shanaad waxay inoo joogtay wiilkii yaraa markuu dhahayo, oo muxuu yahay iminka waxaan dareemayaa macaan aana weligay dareemin, oo waxaan dareemay in dariiqani yahay dariiqii sarraynta. Markii ay sheekadu halkaas marayso, ayuu xaakimkii wiilkii yaraa ku odhanayaa, wiilka yarow, markii hore adigu waxaad cuskatay sababta oo keliya, sida ay dadka qaarkood sameeyaan oo kale, adiga oo aan ku baraarugin in abuurka guushu uu xagga Ilaahay ka yimaado. Kadibna wuxuu yidhi xaakimkii, marar badan ayaan kuugu celcelinayaa wiil yahow, si aanad u iloobin oo aad u xasuusnaato, adiguna igula celceli. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, oo maxaa ku xiga rumaynta Ilaahay? Xaakimkii ayaa yidhi, daacada Ilaahay. Wiilkii yaraa ayaa ku yidhi xaakimkii, anigu Ilaahay waan adeecayaa. Xaakimkii ayaa yidhi, oo maxaad samaynaysaa? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waan tukanayaa oo waan soomayaa. Sidoo kale waxaan ka harayaa wax walboo Ilaahay iga reebay, wuxuu i farayna waan raacayaa. Xaakimkii ayaa ku jawaabay, laakiin mararka qaarkood been baad sheegtaa. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, oo maxay tahay beentu? Xaakimkii ayaa yidhi, waxaa dhici karta inaad wax xasiddo, sidoo kalena wax ka shakido, sidoo kalena wax nacdo, ama aad samayso waxaas la mid ah. Xaakimkii oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaase muhiima inaad ogaato in daacadu ay laba u qaybsanto. Kow, wixii lagu amray inaad la timaaddo. Labo, inaad ka tagtid wixii lagaa reebay oo Ilaahay kaa nihiyey. Waa tan koobaada macnaheedu waxay tahay inaad la timaaddo wax kasta oo Ilaahay kugu amray, ha noqoto soon, salaad, sadaqo iyo xaj, iyo wixii kaloo waajibaad ah. Waa qodobka labaade, waa inaad ka tagtaa wax kastoo Ilaahay kaa reebay. Ilaahay wuxuu naga reebay tuugada, sinada, cabbidda qamriga iyo wax kastoo xun. Wiilka yarow, ka fogow cabbidda sigaarka, maxaa yeelay sigaarku waa musiibooyinka ugu xun ee ruuxu uu naftiisa baro si uu ugu halaago. Sigaarku waxa uu keenaa cudurro badan. Sigaar cabbuhu waa nin naftiisa dulmiyey iyo dadka ku hareeraysanba. Wiilka yarow, ka fogow cabbidda sigaarka, waayo waxaa ku sugan cadaab adduunyo, mid qabri iyo mid aakhiraba. Maxaa yeelay maalinta qiyaamaha waxaa lagu weydiin doonaa shay kasta oo aad samaysay. Ilaahay wuxuu ku weydiin doonaa cimrigaaga meesha aad ku bixisay, sidoo kale maalkaagii iyo wakhtigaagii dhallinyarnimada meesha aad ku bixisay, sida uu inoo sheegay nebigeenna Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ruuxa maalinta qiyaamaha Ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maayo ilaa la weydiiyo 4 shay: cimrigiisii waxa uu ku bixiyey, maalkiisii meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyey, iyo wakhtigiisii dhallinyarnimada meesha uu ku bixiyey. Haddii Ilaahay ku weydiiyo oo uu kugu yidhaahdo ka warran, adigu waad cuntaa, maxaa yeelay waad gaajootaa. Biyo ayaad cabtaa, maxaa yeelay waad harraaddaa. Maxaad sigaarka u cabtaa? Su'aashaas jawaab ma u haysaa? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, anigu horta sigaarka waan cabbaa. Xaakimkii ayaa wiilkii yaraa ku yidhi, haddaba igula celceli wiil yahow, oo iga dabaqaad kelmadahan aan ku dhihi doono. Waxa uuna yidhi sida tan: dheh, anigu markii hore sigaarka waan cabbi jiray. Ilaahay mahaddiis, anigu hadda waan iska dhaafay caadadaas xun. Wiilkii yaraa ayaa kelmaddii ku celceliyey. Haddana xaakimkii ayaa ku yidhi wiilkii yaraa, laga bilaabo saacaddan waad joojisay cabbiddii sigaarka, si aad Ilaahay u raalligeliso, oo Ilaahay daraaddiis ayaad u joojisay. Ninka Ilaahay shay daraaddiis uga tagana, Ilaahay waxa uu ugu beddelaa shay ka khayr badan midkaas. Xaakimkii ayaa ku yidhi wiilkii yaraa, Ilaahay ha kuugu beddelo shaygaas aad Ilaahay daraaddiis uga tagtay: maal xalaal ah, caafimaad wanaagsan, haweenay wanaagsan, iyo nolol fiican. Ilaahay ha kuugu beddelo dad aad jeceshahay, iyagana ku jecel. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, alxamdulillaah, maanta laga bilaabo waan ka tegay cabbiddii sigaarka. Xaakimkii ayaa yidhi, taas keliya kuguma filna, waa inaad caawisaa dad aad u fara badan, si ay iyaguna uga tagaan caadadan foosha xun. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waxaan ku dadaali doonaa inaan caawiyo dad aad u fara badan si ay u joojiyaan cabbidda sigaarka, si ay Ilaahay ugu dhowaadaan oo ay u helaan faa'iido aad u fara badan oo caafimaadku ka mid yahay. Waayo caafimaad la'aan ruuxna ma shaqaysan karo, mana karo inuu go'aan qaato. Wiilkii yaraa ayaa xaakimkii weydiiyey, intaas maxaa ku xiga? Xaakimkii ayaa ku jawaabay, salaadda oo wakhtigeeda la tukadaa waxay soo hoosgelaysaa daacadii aan ka soo hadalnay. Waxaa muhiima inaad Ilaahay ku xirnaato marka aad leedahay Allahu Akbar. Waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato in Ilaahay uu shay walba ka weyn yahay. Marka aad tukanaysana waxaa muhiima inaad tukato salaad sax ah
marka aad wakhtigaaga bixinaysana waa inaad ku bixisaa wax fiican. Tusaale ahaan, marka aad bixinayso sako waa inaad u bixisaa si sharciga waafaqsan. Ruux kasta oo jaahila ama aan waxba aqoonna waa inaad caawisaa oo aad ka faa'iidaysataa jaaniskaas ajirka ah. Wiilka yaraa ayaa ku jawaabay, oo sideen uga faa'iidaystaa? Xaakimkii ayaa ku jawaabay, caawi, sadaqo ayay kuu noqonaysaa. Taaba madaxiisa oo garabkana ka dharbaax, kuna dheh, walaal, wax walba waad awooddaa ee horay u soco, maxaa yeelay waad u naxariisatay qofkaas, una dhowlcaddee. Ilaahayna u weydii inuu albaabadiisa khayr kale u furo. Waxaa laga wariyey saxaabigii caanka ahaa ee Abudardaa, Allaha ka raalli noqdee, ayaa yidhi, waxaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay isagoo dhahayo, walaalka oo aad u dhowlcaddaysaa waxay kuu noqonaysaa sadaqo. Wanaagga oo aad dadka farto, munkarka oo aad dadka ka reebto waxay kuu tahay sadaqo. Ruux indhihiisu daciif yahay oo aad jidka ku toosisaana waxay kuu noqonaysaa sadaqo. Dariiqa oo aad ka qaaddaan qodaxda sadaqo ayay kuu noqonaysaa. Walaalka oo weelkiisa aad wadaanta ugu shubtana waxay kuu tahay sadaqo. Haddii aad arrimahaas samaysana ajar aad u fara badan ayaad helaysaa. Shay kasta oo aad Ilaahay dartii u samaysana waad ka faa'iidaysaa, maxaa yeelay Ilaahay buu kuu dhowaynayaa. Kadibna xaakimkii ayaa wiilkii yaraa ku yidhi, iigu celceli wiil yahow wixii aan soo sheegnay oo dhan. Wiilkii yaraa ayaa markaa xaakimka ugu celceliyey wixii uu yidhi oo dhan. Markii uu wiilkii yaraa ugu celceliyey xaakimkii wixii uu soo maray oo dhan, kadib xaakimkii ayaa yidhi, aan dul istaagno qodobka ah rumaynta Ilaahay oo ah iimaanka. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waan garanayaa arrintaas. Xaakimkii ayaa yidhi, maxaa looga jeedaa iimaanka? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waxaa looga jeedaa inaan rumeeyo jiritaanka Ilaahay. Xaakimkii ayaa ku yidhi wiilkii yaraa, kuguma filna middaas keliya. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, oo maxaa looga jeedaa iimaanka dhammaystirkiisa? Xaakimkii ayaa yidhi, waxaa ka mid a inaad rumayso wax kasta oo xagga Ilaahay ka yimid iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale waa inaad rumaysaa dhammaan kutubtii la sheegay iyo kuwa aan la sheeginba. Sidoo kale waa inaad rumaysaa dhammaan rususha, kuwa la sheegay iyo kuwa aan la sheeginba, oo aad tidhaahdaa, Ilaahayow adiga ayaan ku qirayaa. Waxaan kale oo aan qirayaa kuwa cashriga sida, malaa'igtaada ayaan qirayaa, dhammaan makhluuqaaga oo dhan ayaan qirayaa. Adigu keligaa baa tahay, cid cibaadada lagula wadaajin karaa ma jirto. Adigaa u horreeyey, adigaana u dambeeya. Markii uu dhammeeyey hadalkiisa xaakimkii ayaa wiilkii yaraa oohin qabsaday, kuna yidhi, xaakimow, Ilaahay baan rumeeyey. Waxaan qirayaa Maxamedna inuu yahay rasuulka Ilaahay soo diray. Waxaan qirayaa inay jannadu tahay xaq, naartuna tahay xaq. Waxaan qirayaa malaa'igtaada. Waxaan qirayaa maalinta qiyaamaha. Waxaan qirayaa dhammaan rususha oo dhan. Wiilkii yaraa ayaa intaas hadalkiisii ku soo afjaray, kadibna waxay u wareegtay dhankii xaakimka. Haddaba waxaan sugnaa waa qaybteenna 7 oo middaan ka xiiso badan. Waxaan rajaynayaa inuu taxanaha noloshaada beddeli doono. Fadlan mar walba nala soco. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.